السلام عليكم دمانتين صاحبada sharafta badan maanta waxaan doonayaa inaan sharxo qaybta labaad ee taxanaha sayniska mala'awaalka ah ee loo yaqaan The 100. subaxdii xigtay ee xirada Clark waxay hor fadhidaa qabriga Wells iyadoo la barooranaysa dhimashadiisa. Finn wuxuu u baqay amaankeeda markaasuu ka codsaday inay gasho gidaarka ay ka dhiseen agagaarka xirada. Waxay aaminsan yihiin in Wells ay dileen Groundriska. Clark iyaduna waxay weydiisatay Finn inuu taxadaro iyadoo og inuu habeenkii dhex mushaaxo kaynta. Finn ayaa si qarsoodi ah u siiyay qalin, shay loo arkayay inuu yahay faakihaysi markabka dushiisa. Uma sheegin halka uu ka helay, laakiin Clark ayaa aad uga mashquushay inay ilaaliso. Monty ayaa weli ka shaqaynaya siduu ula xiriiri lahaa markabka aag isagoo adeegsanaya qalabka gacanta. Clark ayaa ku caawinaysa midkeeda maadaama uu weli shaqaynayo. Abby way argagaxday marka qalabka gacanta ee gabadheeda uu shaqada joojiyay. Waxay weli rajaynaysaa in arrimuhu ay caadi yihiin oo qalabku uu shaqada u joojiyay cilad awgeeda. Kaamka dhexdiisa qof kasta wuxuu si adag uga shaqaynayaa sidii loo dhisi lahaa bulsho ammaan ah. Waxay ku dhow yihiin inay dhameeyaan dhismaha derbiyada waxayna si firfircoon u raadiyaan cunto. Murphy ayaa u amraya qof kasta si naxariis daro ah, xitaa nin haraadsan ayuu ku dulkaadshayaa isagoo u diidaya inuu biyo cabo haddii uusan shaqaysan. Dhanka kale Octavia waxay ka caawinaysaa Jasper inuu mar kale socdo. Wuu ka walwalsan yahay socodka banaanka gidaarka isagoo ka naxsan wixii dhacay markii ugu dambeysay. Si lama filaan ah ayuu u turunturooday oo uu arkay faro go'an oo dhulka dul yaala. Labadoodaba waxay ogaadeen inay yihiin farihii Wells maadaama ay farihiisu maqnaayeen markii ay meydkiisa helayeen xalay. Isla markiiba waxay farihii iyo mididii ay soo heleen u keeneen Bellamy. Clark waxay aragtay in mididu ay ku yaalaan faraha Murphy oo ay u malaynaysaa inuu yahay kan dilay Wells. Bellamy wuxuu rabaa inuu iska daayo dhacdada sababtoo ah waxay keeni doontaa muran bulshada dhexdeeda, laakiin Clark way ku adkaysatay. Ma noolaan karto inta uu dilaaga Wells ka baxsanayo dilka. Banaanka ayay u soo baxday waxayna ugu yeedhay Murphy dadka hortooda. Wuu ka diiday laakiin faraha ku yaala midida ayaa ku filan in lagu caddeeyo dembiga. dadka kale ee xirada ku jira ayaaba isaga ku waashay, taasna waxay siinaysaa fursad ay caradooda ku baabi'iyaan. Waxay weerar ku qaadeen Murphy iyaga oo ka hadlaya sharciga iyo nidaamka. Waxa lagu garaacay dhulka xitaa iyadoo Finn iyo Clark ay labaduba isku dayayaan inay joojiyaan dadka. Waxay ka soo laalaadiyeen geed iyagoo diyaar u ah inay dilaan. Ugu dambeyntii go'aanku wuxuu ku jiraa gacanta Bellamy, maadaama uu doonayo taageerada dadka wuxuu diyaar u yahay inuu sameeyo waxa ay rabaan. Markuu Murphy ilbiriqsiyo u jiro dhimashada, Shilood ayaa qiratay in iyadu ay ahayd tii dishay Wells. Murphy waa la badbaadiyay laakiin inkastoo Shilood ay tahay dembiilaha, qofna ma rabo inuu dilo. maadaama sharcigu u siman yahay qof kasta, Murphy wuxuu ku adkaysanayaa inay u dilaan Shilood sidii ay u dili rabeen isaga. Bellamy ayaa ka soo horjeeda oo ay weheliyaan Clark iyo Finn. Waxay qaadeen cod, dadka badankiisuna waxay jecel yihiin in Shilood la cafiyo. Si kastaba ha ahaatee, Murphy diyaar uma aha inuu aqbalo guuldarada. Wuxuu garaacay Bellamy oo uu ku cararay qolka ay Shilood ku jirto, balse wuxuu ogaaday inay la carareen Clark iyo Finn. Markabka dushiisa Abby waxay ku guuleysatay inay qariso Raven. Waxay si adag uga shaqaynaysaa sidii ay u hagaajin lahayd sanduuqa baxsadka ee la dhammaystiri doono maalmo gudahooda. Laakiin waxay u baahan yihiin cadaadis haya cusub si loo hubiyo in ay dhulka ku soo gaaraan si nabad ah. Raven waxay si sharci daro ah u aadaysaa dukaanle lagu magacaabo Nigel. Naagtu waxay diiday inay samayso wax sharci daro ah ilaa ay ogaato waxa loogu talagalay. Waxay sidoo kale aflagaadaynaysaa Raven hooyadeed, taasoo ku dhamaatay gacan ka hadal. Sidaas darteed Raven ma heli doonto cadaadis hayaha. Waxay aadaysaa rugta caafimaadka Abby waxayna u sheegtay wax walba. Abby sidoo kale waxaa dhacday inay taqaano Nigel oo ay garanayso sida wax looga soo saaro. Safaf dad ah ayaa isugu soo baxay banaanka rugta caafimaadka iyagoo ka cabanaya indho la'aan, daal iyo calaamado kale oo badan oo ay sababtay oksijiin yarida. Haddii ay tani sii socoto, dad badan ayaa dhiman doona bisha soo socota. Abby waxay u tagtay Nigel oo u dhiibtay baakid daawo qaali ah si ay uga hesho cadaadis hayaha. Heshiis ayay gaareen, balse way caddahay in Nigel ay qorshaynayso inay khiyaanto. Kaynta dhexdeeda Clark, Shilood iyo Finn ayaa weli ka cararaya dadka doonaya inay dilaan gabadha yar. Finn wuxuu keenayaa god dhulka hoostiisa ah oo uu xalay helay. Waxaa sameeyay Groundriska intii ay halis ugu jireen in la soo weeraro, laakiin waxay u muuqataa in milkiilayaashu aanay gelin godka hoostiisa waqtigii weerarku socday. Shilood way seexatay halka Clark iyo Finn ay ka hadlayaan waxa ay tahay inay sameeyaan marka xigta. Clark waxay neceb tahay gabadha yar maadaama ay dishay saaxiibkeed, balse waxay weli doonaysaa inay badbaadiso sababtoo ah iyaga ma dooran cidda noolaanaysa iyo cidda dhimanaysa. In yar kadib Finn iyo Clark way tooseen, balse
waxay arkeen Shiloh oo maqan. Waxay joogtaa meel kayn ah, waxay la soo baxday dembiga sababay dhimashada iyo colaadda badan awgii. Waxay doonaysaa inay ku laabato Murphy oo ay u ogolaato in nafta uu dhaafiyo. Si kastaba ha ahaatee, Bellamy ayaa helay iyada marka hore oo istaajiyey. Ag dushiisa, Abby waxay Raven u keentay cadaadis hayaha oo ka codsatay inay samayso sanduuqa baxsadka sida ugu dhaqsaha badan ee ay awoodo. Meel kale, Nigel ayaa la kulantay Kane oo u sheegtay wax ku saabsan kulankeedii dhowaa ee Abby. Xataa waxay tusinaysaa daawadii ay Abby kaga bedelatay qalabka cadaadis hayaha. Waxay sidaa u yeelaysaa sidii ay Kane dhabarka uga saari lahayd wax kasta oo sharci daro ah oo ay samaysay. Dhanka kale, Abby waxay la joogtaa Raven oo ay 20 daqiiqo uga harsan tahay inay dhammaystirto hagaajinta qalabka. Waxaa soo wacay saaxiibkeed shaybaarka oo ku wargeliyey in Kane uu u soo socdo si uu u xiro labadoodaba. Gabdhuhu way argagaxeen sababtoo ah waxay haystaan 5 daqiiqo ka hor inta aan la qaban. Abby waxay qarinaysaa Raven, iyadana waxay istusinaysaa Kane. Dhulka, Murphy, kooxda iyo Clark ayaa isku mar helay gabadha yar. Murphy wuxuu u baahan yahay dhiig, laakiin kuwa kale ayaa joojinaya isaga. Bellamy wuxuu samaynayaa intii karaankiisa ah hogaamiye ahaan, laakiin Murphy ma dhegaysan. Dhammaadkii, Shiloh waxay ka boodaysaa buur u dhoweyd si ay uga ilaaliso qof kale inuu dhaawacmo. Bellamy oo u malaynayay inay tahay walaashii ayaa ka naxay. Wuxuu soo weeraray Murphy isagoo doonaya inuu dilo, laakiin Clark ayaa mar kale joojisay. Waxay ku andacoonaysaa in la musaafiriyo isaga ay ka fiicnaan lahayd. Kooxdu way ogolaatay oo xitaa raggii la socday Murphy waxay ku noqdeen xirada iyagoo keligiis uga tegay kaynta. Raven waa keligeed, si degdeg ah ayay u hagaajinaysaa cadaadis hayaha, laakiin waxay ogaatay in la siiyey mid khaldan. Tallaabada ugu dambaysa waxay xiranaysaa dharka hawada sare oo waxay diyaar u tahay in keligeed soo duusho iyada oo aan haysan qalabka cadaadis hayaha saxda ah. Banaanka, Kane wuxuu qabtay Abby oo uu weydiinayaa sababta ay uga soo horjeedo golaha. Waxay sheegtay inay u samaynayso gabadheeda iyo cid kasta oo markabka saaran, balse aakhirkii waa la xiray. Isla mar ahaantaana Raven waxay u duulaysaa dhulka, marka askartu weligood ma qaban doonaan. Abby waxay rajaynaysaa inay fariin dib uga heli doonto Raven dhowr saacadood gudahood, laakiin Kane wuxuu ka codsaday inay joojiso dhammaan mala-awaalka aan xaqiiqda ahayn. Monty wuxuu isticmaalayaa dhammaan qalabka gacanta ee shaqaynaya markii ugu dambeysay si uu fariin ugu diro markabka aag. Markabka waxaa ka sii lumaya dhammaan noocyada isgaarsiinta ee 100 qof. Jasper ayaa isku tilmaamay inuu habaaran yahay sababtoo ah wuxuu ahaa qofkii ugu dambeeyey ee riixay badhanka. Octavia waxay ugu qalbi qaboojinaysaa inuusan khalad ku lahayn. Finn sidoo kale wuu xanaaqaya isagoo u malaynaya in aanay weligood la kulmi doonin kuwa ay jecel yihiin. Wuxuu bilaabay inuu wax burburiyo ilaa Clark joojiso isaga. Maalintii xigtay, gudoomiyaha wuxuu xabsiga ku booqday Abby oo uu tusay xogta deegaanka ee markabka. Waxaa soo baxday in heerka oksijiinta uu hoos u dhacayo si ka dhaqso badan sidii la saadaaliyey, taasoo macnaheedu yahay inay maanta ka takhalusi doonaan ugu yaraan 300 oo qof si kuwa kale u badbaadaan. Golaha ayaa horay u ansixiyey qorshaha dhimista dadweynaha. Maalintaas kadib 300 oo muwaadin ah ayaa loo diri doonaa qaybta 17aad, waxaana lagu dili doonaa joojinta oksijiinta ee qolka. Abby waxaa loo xilsaaray inay daryeesho dadka buka ee sii kordhaya ee ku jira qaybta bukaanka. Meel kale, Finn iyo Clark waxay joogaan dhufayska banaankiisa oo ay arkeen sanduuq dhulka ku soo dhacaya. Waxay ogaadeen in qof loo soo diray caawintooda oo isla markiiba waxay bilaabeen inay raadiyaan sanduuqa soo dhacay. Isla mar ahaantaana Bellamy ayaa sidoo kale arkaya oo wuxuu ka dhigayaa hawshiisa siduu u joojin lahaa nooc kasta oo macluumaad ah oo laga soo diray markabka. Ma rabo inay dadku ku xukumaan dilka gudoomiyaha, sidaa darteed qof kasta wuxuu ku hayaa xirada oo si qarsoodi ah ayuu u raadinayaa sanduuqa. Markabka dushiisa, Abby waxay la kulmaysaa gabadh yar oo lagu magacaabo Reese oo hal il aysan waxba ka arkayn yaraanta oksijiin awgeed. Aabaheed aad buu u doonayaa inuu sameeyo wax kasta oo ay ku qaadato si uu u caawiyo gabadhiisa, laakiin Abby waxay ogtahay inaysan jirin wax ay samayn karaan xilligan. Octavia waxay heshay walaalkeed oo u socda si uu u raadiyo sanduuqa oo ay joojisay. Wuxuu daaha ka qaaday inuu ku toogtay gudoomiyaha qof amarkiisa sababtoo ah waxaa la siiyey fursad uu mar kale kula kulmo iyada. Octavia oo naxday ayaa u sheegtay inaanu ku qasbanayn inuu taas sameeyo, laakiin Bellamy wuxuu sheegay inuu wax walba u sameeyey iyada darteed. Walaalaha ayaa kala tegay iyadoo Bellamy uu aadayo sanduuqa halka Octavia ku soo laabatay xirada. Kadib waxaan aragnaa gudoomiyaha oo weydiisanaya Kane inuu noqdo hogaamiyaha xiga sababtoo ah wuxuu qorsheynayaa inuu ku biiro muwaadiniinta qaybta 17 isagu kama dhigi karo dadka inay naftooda huraan isagoo aan isaguba samaynin. ma jeclaysan fikradda, laakiin gudoomiyaha wuu ku adkaystay. Bellamy ayaa ugu dambeyntii ka helay Raven gacanteeda oo uu ku jiro raadiye shaqaynaya. Inta aanu cid kale dib u dirin fariinta, wuxuu ku tuurayaa biyaha oo uu ku guulaystay inuu burburiyo. Intaas kadib, Clark iyo Finn waxay heleen Raven. Waxay dib ula midoobi doontaa Finn iyadoo muujinaysa inay yihiin lamaane. Clark way naxday oo waxba ma samayn karto, laakiin waxay ka caawinaysaa dhaawaca Raven. Raven waxay u sheegaysaa wax walba oo hadda ka socda markabka dushiisa. Waxay raadinayaan raadiyaha, laakiin waxay ogaadeen in mar hore la xaday. Meel kale oo kaynta dhexdeeda ah
Octavia waxay maqashay qof daba socda oo way argagaxday iyadoo isku dayeysa inay cararto ayay ka dhacday meel buur ah oo way dhimatay. Markay Abby ogaatay go'aanka gudoomiyaha ee ah inuu ku biiro dhimashada way naxday. Waxay isku dayeysaa inay si kale u qanciso iyadoo og in Kane aanu noqon karin hogaamiye wanaagsan sababtoo ah waxaa ka maqan naxariista. Isku daygeeda ugu dambeeya ee ay ku joojinayso dilwadareedka waxay soo saaraysaa muuqaal uu Jake duubay ka hor dhimashadiisa. Muuqaalka ayuu wuxuu ku faahfaahiyey wax walba oo ku saabsan sida ay wax u socdaan, waxaana uu shacabka ku booriyey inay isku duubnaadaan si ay dhibaatada u xaliyaan. Clark ayaa ugu dambeyntii heshay Bellamy oo u sheegtay in 300 oo qof ay dhiman doonaan haddii uusan soo celin raadiyaha. Wuxuu dareemayaa xumaan laakiin wuxuu ogyahay inaanu hadda dib u soo noqonayn. Markuu Raven la kulmo isla markiiba waxay u aqoonsatay inuu yahay ninkii toogtay gudoomiyaha. Waxay sidoo kale daaha ka qaaday in gudoomiyaha aanu dhiman, taasoo la macno ah inuu weli fursad u haysto nolol caadi ah. Bellamy wuxuu ogolaaday inuu caawiyo oo uu u sheego meesha uu raadiyaha ku jiro. Webiga ayay eegeen oo ay isla markiiba heleen, laakiin raadiyaha ayaa jabay oo aan la hagaajin karin. Dhanka kale Abby waxay ka daynaysaa muuqaalka Jake markabka oo dhan. Dadku waxay ogaadeen dhimista oksijiinta iyo qorshaha dilka ballaaran. Daqiiqado yar gudahood dadweyne ayaa isugu soo baxay banaanka xarunta. Gudoomiyuhu wuu ka niyad jabay Abby inay samaysay khalad aad u weyn laakiin ma muujin wax ka shalayn ah. Dadka dibadda jooga waxay soo direen qof iyaga wakiilka ah oo golaha la hadla. Ninku waa Reese aabaheed oo Abby la kulantay horaantii maalintaas. Waxaase la yaab noqotay inuu diyaar u yahay inuu si mutadawacnimo ah uga mid noqdo 300 ee qof ee la rabo in la dilo. Wuxuu rabaa in gabadhiisu ay noolaato qiimo kasta oo uu diyaar u yahay inuu naftiisa u horo iyada. Sidoo kale dhowr qof oo kale ayaa raacaya hoggaankiisa iyagoo si mutadawacnimo ah ugu horaya naftooda bani'aadanimada. Hogaamiyaha iyo Kane way naxeen, waxay garwaaqsadeen in Jake uu saxnaa. Waqtiyada adag waxay soo saaraan wanaagga dadka markabka. Dadku waxay samaynayaan toosh iyadoo ay Raven hogaaminayso. Waa inay u duusho hawada sare oo ay u digto golaha, laakiin waa inay degdegaan maadaama uu dilku saacado ka harsan yihiin. Waqti kadib dhowr qof ayaa si mutadawacnimo ah ugu soo biiray si ay uga mid noqdaan 300. Goluhu wuxuu ku qasbanaaday inuu diido ku dhawaad 100 qof sababtoo ah waxay ahaayeen shaqaale daruuri ah iyo dad aan qaangaar ahayn. Gudoomiyaha iyo Kane labaduba waxay ka shalaayeen go'aankooda ahaa inay dilaan saaxiibkooda Jake. Gudoomiyaha ayaa weli doonaya inuu qayb ka noqdo 300 laakiin Kane ayaa ku qanciyey si kale. Wuu ogyahay in gudoomiyaha uu noolaado si ay dadku weli rajo u yeeshaan. 300 dadkii ay jeclaayeen bay macsalaameeyeen oo qolkii bay galeen. Wax yar kadib neefta oksijiinta waa la joojinayaa, waxayna u dhinteen geeri xanuun la'aan ah dhowr daqiiqadood gudahood. Gudoomiyuhu wuxuu ka gaabsaday ku biiritaankooda sababtoo ah dareemidda waajibaadkiisa. Isla mar ahaantaana kooxda dhulka joogta waxay dirayaan tooshkii laakiin way ka daaheen. Octavia waxay si lama filaan ah u kacday saqda dhexe, waxayna isku aragtay kaynta dhexdeeda. Isla markiiba nin weyn ayaa ka soo hormuuqday. Dhanka kale Abby iyo ilaalada ayaa nadiifinaya meydka dadkii naftooda horay. Kadib Abby waxay ku jirtaa qolkeeda iyadoo ka murugaysan dhimashadii maanta dhacday. Waxaa ku soo biiray gudoomiyaha oo sidoo kale u qoomamaynaya. Muuqaalkii ugu dambeeyey waxay eegeen dhulka oo ay arkeen fariimaha ay soo direen 100 qof. Muuqaalka halkan ayuu ku eg yahay. Fadlan taawo subscribe iyo like haddaad jeceshahay muuqaaladan oo kale. Kulanti dambe oo aad u xiiso badan. Mahadsanid.